qaar ka mid ah culimada waaweyn ee magaaladan Boorama iyo ganacsatada ayaa maanta waxa ay ka mahadceliyeen deeq lacageed oo qaar ka mid ah jaaliyadaha gobolada Awdal, Salal iyo Gabiley ka soo jeeda iyo guud ahaan jaaliyadaha Soomaalida ay ugu soo tabaruceen dhismaha masjidka weyn ee Abu Hurayra oo noqonaya masjid laba dabaq ah oo xilligan dhismihiisa uu ka socdo gudaha magaaladan Boorama. Culimadiinkan oo ka mid ah Sheekul Beledka magaalada Boorama Sheekh Cabdilaahi Sheekh Cali Jawhar, isku xiraha jaaliyadaha dibadaha iyo dadka goboladan ku nool Xaaji Cabdiqaadir Aadan Nuur iyo qaar kale oo ka mid ah culimadiinka waaweyn ee goboladan Awdal iyo Salal ayaa maanta waxa ay ka warameen deeqaha lacageed ee la soo gaarsiiyay masjidkan si loogu dhameystiro dhismaha masjidkan oo xilligan ka socda gudaha Boorama, iyagoo baaqna u diray dhammaan jaaliyadaha Soomaalida iyo cid walba oo Islaam ah inay ka qayb qaadato dhismaha masjidkan. dhammaan dadweynaha ka qayb qaatay masjidkan dhismihiisa awalkiisii iyo intiisii dhexe iyadoo dhismihiisu ilaa hadda uu socdo oo sida aad arkaysaan qaybo imka la wada ay jiraan. alxamdulillah maalintii masjidka aan maxaan ku raadey qayla dhaanta aan soo direynay masjidka shaqo ka socotay, dumar baa ka shaqaynayay, rag baa ka shaqaynayay, boor buu ahaa. maantana alxamdulillah waa qaybtii labada halkaysan masjidkii qaybtii hoose in markeeda alxamdulillah uu dhow yahay oo dhammaad uu ku dhow yahay. waxaanu aad iyo aad dalkan ugu ducaynaynaa dhammaan dadkii soo diray magaalada gudaheega joogay, kuwii magaalada dibaddeeda joogay, kuwii maxaan ku raahday Puntland joogay oo qaarkood ay telefoon lagula soo xiriirano haba yani waxa weeyaan hamiga ku jira oo yahay hami weyn oo yahay oo iyaguna ka soo qayb qaatay dhismaha masjidka. haba ha yaraado ha badnaado masjidka waxa gelisaa ilaahay agtiisa waa waxayno wax yar ilaahay agtiisa kuma aha. reerkan haddaan wax yar inaga taabto marka la sheego shakhsi waa reerka dadka qurba jooga runtii ugu lacag badan marka shakhsi la sheego $1,000 bay gabadhaas soo dirtay, odageyguna waa la mid. marka waxay iyaguna runtii ay fursad u heleen inay sheekha dhawaaqii maalinta dhaweyto u jeediyay ahayd in masaajidka qaadhaanka loo ururiyo inay sheekhow dadkii nuuleey ka soo jawaabay ay ahaayeen. lacagta muddo badan oo usbuuciyo gaadhaysa ama 2 usbuuc ay taallay xawaalada runaantii inuu sheekh ay ducada sheekhana inay haleelaan sharaf way u tahay reerkaasi oo reer aad u barakaysan. dadka imka tabarca iyo baaqa ajiibay ee kamid ah qoyska ay kamid yihiin $1,000 soo diray ee Cabdiqaadir ku soo hagaajiyay iyo magaalada gudaheega koob wax nooga soo dhiibay. waxaan u xusuusnahay 3 dumar oo mid walba gacan ay dhintay oo asdeerta qabar siiyay imaamka masjidka aanu keenay. dhammaan waxaan uga baryaynaa in Ilaahay miisaanka xasanaadka ugu daro. waxaan sugaynaa waa gogashii iyo weysadii weey halka waxaad arkaysaa lagu weysaystaa banaanka daasadii yar yaraa yaa la soo weysaystaa. marka weysa fiican aan u sameeyno iyo doonaynaa iyo gogol fiican marmarkiisi guduhu raxanti waa u dhamaaday. laakiin wuxuu dhamaaday waxa weeye iyadoo dadka ganacsatada badeecad laga soo qaaday oo ay waxay leeyihiin oo sheekhu sheegay $4,000 ay leeyihiin dushura ay noo harsan tahay gobashiisii iyo marmarkiisii ay noo harsiyay iyo weysada tabarucayna dhamaantiin ka soo qayb gashaan baan ku rajoonahay. Cabdi Fataax Axmed, Hadwanaag News, magaalada Boorama.